ماشي هذه ما الفري ما لقبا maxaa isleedihiin lacala ya aniga waa la soo wada telefoonka cid ka qabto wala waa ku salaam qadar oo sayta xaaladda ka waran maxaa haysaa waa xawaay waa daalnaa alxamdulillah shaadi sharaf iyo cabdifataax yare oo markii ugu horeysay ka hadlay barnaamijka qarxiska ah ee laga soo faafiyay iyada iyo sidoo kale qadarkeeyo waxa ay ka hadasho xaqiiqada iyo sida ay wax u jiraan iyo sababta keentay in muuqaalkan laga duubo iyo sidoo kale muuqaalo laga duubay shaadi sharaf oo iyana halkan kugu soo bandhigayo kuwaas ay u dirtay sida la sheegay qadarkeeyo haddaba xiriir aynkee ah ayaa ka dhaxeeyay shaadi sharaf iyo qadarkeeyo marunba in iyadoo la qaba ee gogolaaf la sameyn jirtay kadibna ogaaday cabdifataax maxayse markaasi hadda ku jirtaa xaalad aynkee ah cabdifataax iyada miis qabaan mase waa kala tageen waxaan daawada kula wadaagayaa xogihii ugu dambeeyey ee ku saabsan dhacdadan argagaxa leh iyo sidoo kale muuqaalkan halista ah ee laga soo faafiyey shaadi sharaf saameyn aynkee ah ayayse ku yeelatay reerkeeda intaanan muuqaalka oo dhammaystiran kula wadaagin daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena haldoor media fadlan ugu soo biir oo subscribe oo furo gambalelka si aad noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena like sar muuqaalkan share garay lana wadaag saaxiibadaada mahadsanid shaadi sharaf oo fanaanad caan ah aadna looga yaqaano social media ayaa xalay muuqaalkeeda iyo sidoo kale codad iyadu leedahay waxaa si aad ah loogu baahiyey social media gaar ahaan aaladda tiktok-ga weli markii dambe loo soo qaaday facebook-ga haddaba dhacdadan yaabka badan ayaa noqotay in shaadi sharaf oo ahayd xaasil qabo oo sharaf leh la ogyahay muuqaalo romantic ana lasoo duubi jirtay ninkeeda la ogaaday ama socodkan laga dareemay in markaasi fanaanka qadarkeeyo ay Nairobi waqti ku wada qaadanayeen sida ka muuqata muuqaalka iyadoo mararka qaar qoraalada qaar la dareemayo xitaa iyadoo la qabo inay meeshaasi waqti ku wada qaadanayeen shaadi sharaf oo maanta live soo gashay ayaa arrimo badan banaanka soo dhigtay waxayna ka hadashay sidii ay wax u dhaceen iyo xaqiiqada arrintan uu soo baahiyay qadarkeeyo haddaba maxaa ka jira in cabdifataax yare iyo shaadi sharaf ay markii hore kala tageen kadibna sida arrintan ku soo baxday haddaba daawada xogta aan helayno waxay cadeynaysaa aniga qaybta dambe ee muuqaalkan kula wadaagayo muuqaalada live-ka shaadi sharaf oo si toos ah uga hadashay arrintan dhacdadan waxay ku dhacday horta waxay dhacday gudaha sanadkan sida aan xogta ku helnay xilli shaadi sharaf ay ku sugnayd magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasna oo joogay qadarkeeyo oo isna xaasla ah balse xaaskiisu ay ku maqnay dalka dibadiisa oo aysan markaasi isaga la joogin haddaba shaadi sharaf intii uu qaba cabdifataax ayaa la sheegay in xiriir hoose uu ka dhaxeeyay maadaama iyada ninkeeda aysan aad u fahansaneyn xiriirkeedu oo markaasi aad u wanaagsanaa ayaa keentay in shaadi sharaf ay iska furto cabdifataax yare kadibna ay sidaa xiriirka iyadii qadarkeeyo uu ku bilaawday sida aan muuqaalka ka dareennay codka aan laga baahiyay andhehe shaadi sharaf waxaa ka muuqatay in qoraalada qaar iyadoo cabdifataax isqabaan in qadarkeeyo ay markaasi la hasaaweysay tusaale ahaan waxaa jira qoraal kamid a codadka lasoo bandhiga la socday iyadoo shaadiya dhehaysa haddii aad u malaynaysid in markaan Soomaaliya tago ama cabdifataax aan la joogo yacni aad dhehaysid cabdifataax la joogtaa hay iyo hay ka badan isma dhahno koraan iska istaana xitaa waa iska ilaaliyaa intaa u muuqato in nin saygeeda ah ay mataqaanaa waajibaadkiisa u diidayso ama inuu ka xaaji guto iyadoo ku qancinayso nin aan qabin waa sida ka muuqatay qoraalkii la soo baahiyey oo la sheegay shaadi sharaf inay lahayd dhacdada kale ee yaabka badan waxay tahay shaadi sharaf afkeeda inay ka dhageysay iyadoo isqabin in muddo 20 maalin ilaa bil ah ay ku wada raaxaysanayeen magaalada Nairobi iyadoo iyo sidoo kale fanaanka caanka ah ee qadarkeeyo haddaba qadarkeeyo oo nin xaasla ah ayaa sida muuqata waqtigiisa ku beerdariyay shaadi sharaf isagoo aan wax jacayl u qabin halka iyadoo ay jecleed laakiin markii barnaamijkii isfahamnimo uu dhacay bil Ramadaan la soo galay uu ka codsaday inuusan la dambaabi karin naag la qabo shaadi sharaf arrinta ay ku xumatay dib waxay u soo laabatay magaalada Muqdisho bisha shanaad dhexdeeda ayay muuqaalo soo duubtay ninkeedii cabdifataax yare waxaana la sheegay in gadaal ay isaga laabteen iyagoo aan kala dhaamay cabdifataax yare iyadoo waxay isku dhaceen markii ay qadarkeeyo si taas isu jeclaadeen kadibna waa ay kala tageen laakiin wixii la hasaawi jirtay inta kala tiin ka hor kadib markii markale ay Nairobi ku kulmeen oo ay waqti wada qaateen waxay ka codsatay inay isguursadaan laakiin isagu xaas ayuu qabay waan u sheegay weyn ogeed qodbisada waa ku diiday iyadoo cariisan ayay soo laabatay Muqdisho ayay imaatay markale ayay ismeersadeen iyadii cabdifataax yare iyadoo weli uusan shaacin inay kala tageen sharcigan uu baneenayo inay isku laaban karaan maadaama maxalal ay soo martay haddaba
shaadi sharaf oo ka xumaatay qadarkeyo arrintiisa sidaa ayay ku kala dhamaadeen waxayna noqdeen dad walaalo ah laakiin waqti soo wada qaatay qadarkeyo waxaa imaatay xaaskiisa dib ayay gacanta u dhigtay snapchatka qadarkeyo waxayna ku aragtay muuqaalo badan oo ay ku jirtay xitaa kuwo markaasi telefiis ku jiray oo whatsapp ahaan loogu soo diray qadarkeyo shaadi sharaf oo markaasi kolley qaawan waxaana lagu wadaa ama ay qorsheynaysaa dadka dhalinyarada hadda gacanta ku haya inay dhowaan soo baahin doonaan haddaba waana muuqaalada lagu markaasi rakaatenayo shaadi sharaf oo markasta loo sheegayo in loo soo bandhigi doono muuqaaladan sida xogta aan ku heynay qadarkeyo ma bixin ee waxaa bixiyay xaaskiisa bal aan kula wadaago lifekii mataqaanaa shaadi sharaf iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyey ee kiiskeeda